بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan saxaafadda reer Puntland iyo dhammaan saraakiishii amniga oo ka soo qayb gashay shirkii wasaaradda amniga lagu hayay oo laga hadlayay amniga waxa ka soo qayb galay guddiga nabadgelyada heer gobol iyo saraakiisha kala gedisan ee gobolka bari ayaa ka soo qayb galay arrintan waxyaalaha amniga maartay lagu dirdirgelinayay ayaa laga hadlayay aad iyo aad baan ugu mahadceliyay sida ay u soo qaabileen arrintan iyo sida la isugu afkartay in looga shaqeeyo xagga amniga guud dirdirgelintiisa bisha Ramadaan oo barakeysan oo ummadda ay cibaadeysanaysan maartay amnigeeda loo sugo sharwadayaasha bisha Ramadaan oo cibaadada ummadda muslimiinta dhigeeda caadaystina la isaga ilaalin lahaa qodobadaas ku saabsan aad baan la isugu afkartay waxaan kaloo tacsi u dirayaa dhammaan dadka reer Puntland oo ku geeriyooday sanadkan sharwadayaashu dambiyada ay ka galayeen dadka reer Puntland oo ay leenayeen way ugu dambeysay gabadhii ahayd gudoomiyaha gobolka Mudug haweenka magaceedana la yiraahdo Doodo Yuusuf oo ay sharwadayaashu ku dileen magaalada Gaalkacyo aad baan uga taxsiinayaa iyada carruurteeda iyo dadka ehelka oo dhan waanu taxsiinayaa waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo carruurteeda iyo dadka ehelka iyo dadka reer Puntland ummaduna bisha Ramadaan inay cibaadeysato cibaadada waxa kamid ah loo cibaadaysanayo in sharwadayaasha ay kamid tahay cibaadada qayb kamid ah cidii aragtay iyo cidii soo sheegta iyo cidii la dagaalantaba ay kamid tahay cibaadada maarta bisha Ramadaan iyaguna ay leeyihiin waxaan ku cibaadaysanaynaa dhiigga muslimiinta marka waxaan kula talinaynaa aan soo jeedinaynaa dhiigga ummadda muslimiinta oo sooman cibaado maaha waxa weeye jiniibo weeye iyo maartay naar mudasho weeye marka ummadda in maartay amaan la siiyo amaanka la siinayana aysan ku saabnayn in la baryayo ay tahay mid in la iska wada ilaaliyo oo gacan bira maartay xaafadaha iyo degmooyinka iyo gobolada iyo kulli cidda ama soconaysa gudbaysa ama cidda deegaamada degan in si fiican loo baaro ayaan waxyaalahan ka hadalay kamid ah waana la isku afkartay aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaan ummadda reer Puntland iyo ummadda reer Puntland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay Ramadaan wanaagsan baan leeyahay bisha Ramadaan bisha khayr bil khayr baan leenahay 11 bilood ayaa dadku maartay soo soomanaa bishii 11 bilood lagu cibaadeysanayay baa lagu jiraa sharka iyo maartay hala yareeyo khayrkan hala basado iyo maartay salaada iyo wax bixinta iyo bishaan hala badiyo oo dadku waxa la bixin aad baan u mahadsantiin hawlgallada jiray oo dhinaca ammaanka oo bisha Ramadaan ciidamadu sameynayeen hawlgalladaas weli ma socdaan mise waxa jira mise jiraan ilaa hadda wax la soo bandhigay oo hawlgalladaas lagu soo qabtay kasoo mudaranki Gaalkacyo iyo waxyaabo kale jira waxaas arrintaas oo arrin sir weeye ciidan weeye sida hawlgalladu socdaan iyo sida wax loo qabanayo arrin idaacad laga sheego maaha laakiin dadku iyaga ka arki doona maartay meel ay degan yihiin iyo wax la qabanayo aan la soo bandhigi doona hadii la ka dhigo shacabka maxaa ku baaqaysaa shacabka reer Puntland waxa lagu baaqayaa inay hawlgallada iyo maartay dadaalka amniga loogu jiro inay ka qayb qaataan dhammaantood meel kasta ay joogaan